ilaa ay bishii toddobaad sanadkii tagay ayuu ayaxu marayay deegaano badan oo Soomaaliya. wasaaraddu waxay waday dadaalo badan oo ka soo bilowday in gacanta lagu buufiyo, markii dambe in lagu buufiyo baabuur lagu rakibay motooradii buufinayay. maantana waxaan u joognaa in diyaaradihii cirka ka buufinayay la daha furayo. 3 diyaaradood hadda laba halkan taagan, mid kalena wuxuu imaanayaa dhowr bari kadib oo ka buufin doona cirka. diyaaradahaasi waxay buufinta ka bilaabi doonaan gobolada ugu daran oo ayaxu aadka u degay Galmudug, maamul goboleedka Galmudug iyo Puntland. waxaa kaloo iyadana laga buufin doonaa gobolada Somaliland. ayaxaas oo runtii kii hore degay oo gacantii uu ka tagay hadda ay dhalayso roobabkan socda sababtooda awgeed isbedelada cimilada ku dhacay darteed. runtii ayaxu wuxuu noqday musiibo weyn oo ku soo biirtay bariga Afrika, iyadoo la og yahay culayska adduunka maanta uu ku hayay Soomaaliya si gaar ah caabuqa safmarka ee coronavirus. ayaa haddana dawladdu waxay u taagan tahay in musiibooyin kale oo jira lala tacaalo oo ayaxu ka koow yahay. waxaan rajaynaynaa sida hadda uu noo sheegay ninka hogaaminaya tiimka diyaaradaha buufinaya inay dhul badan ka buufin doonaan haddii ilaahayd ma ayaxa jooga, oo ay laguna buufin doono chemicals oo organic ah ama dabiici ah oo wax dhibaato u geysaneen xoolaha iyo biyaha iyo dadka intaba, oo hore loo geeyay deegaamadaas hore u yaalay oo loogu talagalay maadaama xooluhu aad ugu fara badan yihiin waddankeena inaan dhibaato ka soo gaarin. waxaan rajaynaynaa in horumarkan hadda maanta la sameeyay oo in diyaaradaha markii ugu horeysay Soomaaliya 30 sano muddo ka badan diyaarado in lagu buufiyo ayax waa runtii dadaal waxay ku timid wadajir oo dawladdu ay ka shaqeysay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda sare ee dawladda, madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo runtii ilaa markii uu bilowday musiibada ayaxu dadaal gaar ah iyo ahmiyad gaar ah siinayay sidii looga hortagi lahaa. waxaan kaloo u mahadcelinayaa hay'adda FAO oo khibrad badan oo xagga technicalka ka geysatay la dagaalanka ayaxa. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hay'adda USAID oo iyadu fanka diyaaradahan bixisay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.